kooxda Winners ayaa gool kulaagayaal 3-1 uga soo badisay kooxda Blue Ice Cream sidaana ku qaaday koobkii kooxaha heerka labaad garoonka Maxamuud Axmed Cali degmada Maxamuud Haybe ee magaalada Hargeysa. Isku darka labada qaybood ee ciyaarta ayaa ku soo laatay berbere eber iyo ebra iyadoo kulankan u dhexdhexaadiyay ka ahaa daahir waxaana loo gudbay qaybtii gool kulaagyada. ومعنا الونرز من ومن سيعبر ومن سيبكي ومن سينتصر شعارها وسنة تعارف الثلاثي رقم 6 لعب الكرة اخرنا يرمي جانبي رمي تمسفين شيء من سيضرب الكرة gool kulaagyadii kooxda Winners ee koobkan hanatay hadii aynu eegno guulad Peter waa laga qabtay halka Cabdilaahi Muuse iyo Cabdiqanine ay dhaliyeen. gool kulaagyadii kooxda Blue Ice Cream ee kaalinta labaad ka gashay tartanka hadii aynu eegno Maahir waa laga qabtay Sakariye waa dhaliyay Khalid iyo Farxaana waa laga qabtay. xiritaanka tartanka kooxaha heerka labaad garoonka Maxamuud Axmed Cali waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin maamulaha dugsiga Maxamuud Axmed Cali, gudoomiyaha dalada dhalinyarada Somaliland ee Soonya waa Cabdicasiis Maxamed, xogayaha warfaafinta xisbiga Ucud Yuusuf Kayse, macalinka kooxda wasaaradda biyaha Hargeysa Siciidanko Maxamed Yuusuf oo ah xubin ka tirsan xiriirka cusub ee kubadda cagta Somaliland ee dhawaan la doortay iyo marti sharaf kale oo lagu marti qaaday xiritaanka tartanka kooxaha heerka labaad ee garoonka Maxamuud Axmed Cali ee magaalada Hargeysa. mas'uuliyiintii ka hadashay xiritaanka tartankaasi ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahaa sida tan. marka hore waxaan idin leenahay ku soo dhawaada garoonkan caalamiga ah ee Maxamuud Axmed Cali. marka garoonka waa garoon hadiya jeeraale runtii ku filan in dhalinyartu ku ciyaarto. waxa weeye garoonka waa garoon aanu nadaafadiisa iyo nabadgelyadiisa aad u ilaalinay. marka waa idin ku soo dhaweynaa. marka hore waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa kooxda garoonka maamusha oo si habsamiya iyaguna maaragtay xagga nabadgelyadiisa iyo nidaamkiisa iyo jadwalkiisa xil isaga saaray. waxaan leeyahay hambaliyo sida fiican soo abaabusheen tartanka ugu soo dhawaadeen. waxaan aad ugu dardaaraya in tartanada noocan oo kala si joogteeyo waa tartanada ay ku soo bixi karaan laacibada fiican ee heerka koowaad iyo heerka gobolada iyo standardka ka ciyaar waa meesha ay ku soo bixi karaan. aad iyo aad u hambalyeynaya cid kasta oo ka qayb qaadatay. aad iyo aad baan salaamaya. koobkan quruxda badan soo qaadiseen kulli hadalka badankiisa waa la yiri ciyaarta badankeeda waan joogay marka waan idin mahadnaqayaa. waxaan leeyahay sida dadaalka ka sii wada ciyaarahan iyo koobkan wax loo baahan yahay. waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo munaasabadan maanta koobka ay ku kala qaadayeen labadan kooxood. runtii waxay soo bandhigeen ciyaar aad iyo aad u qurux badan oo arkaysaano gobolka isugu dhacay sida ciyaartu u socoto. waxaan u rajaynayaa guul baan u rajaynayaa. waxa kaloon halkan u hambalyeynayaa oo iyaguna mudan in maaragtay la hambaliyeeyo kooxihii hore iyaguna ka soo qayb qaatay. waxa si gaar ah ugu hambalyeynaya cidda koobkan qabatay in koob la qabtaa ma sahlan. aad iyo aad bay u adag tahay. waa arkaysaano wasaaraddeennii dawata la il daran qabashadiisa. waxaa laga yaabaa 5tii sannaba in mar la qabto ama 4tii sannaba. imika 3daa sanna waa markii koowaad la isiraahdo qabta. aad iyo aad bay u adag tahay. runtii waa farxad inaan ka soo qayb galo ciyaartan qiimaha badan ee finalka ah ee lagu soo gabagabeeyay tartankii in muddo ka soo socday garoonkan dugsiga sare Maxamuud Axmed Cali. waxaan rajaynayaa in insha Allah tacaala tartanada dambe aan qolada maamulka isarki doono oo ka qayb qaadan doono. waxaan u rajaynayaa insha Allah tacaala inay guul ku dhamaato. tartanada noocan ah waa dhiirigelinaynaa. wixii itaalkeenu ka qayb qaadan karana waa ka qayb qaadanayna. wad mahadsantiin. waa maamulaha iskuulka maarbin waa maamulahan dhalinyarta iyo inta jecel waxbarashada iyo sportsku aanay ka maarbin. waxaa kaloo u mahadnaqayaa gudoomiyaha Sonyo xogayaha xisbiga Ucid Abti Yuusuf Abti. aad baan ku salaamaya adigana dhammaantiin aad baan idin salaamaya iyo marti sharafta kale ee meesha joogta Maxamed Yuusuf oo isagana dhawaan loo doortay xiriirka oo xubinka ah. isagana aad baan u salaamaya. runtii aad baan ugu faraxsanahay. ciyaaruhu waxay qayb ka yihiin isdhexgalka balwad la'aanta qabyaalad la'aanta. waa taa aad arkaysaan oo si fiican bay u socotaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. tartankan ayaa u dhexeeyay 16 kooxood oo darajada heerka labaad xilli maanta oo Jimcaha si toos ah loo soo gabagabeeyay tartankaasi. si kastaba kooxda Winners ayaa gool kulaagayaal 3-1 uga soo badisay kooxda Blue Ice Cream sidaana ku qaaday koobkii kooxaha heerka labaad garoonka Maxamuud Axmed Cali degmada Maxamuud Haybe ee magaalada Hargeysa. Axmed Taye Qaran wararka Malcab magaalada Hargeysa.